سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. والله ليال ما أنت وحكوا بشي ذي الحجة كم إذا هيد بلها حرمة له بشاس oo maanta maalinta sideedaad loo dareeri doono xajkii arkaan islaamka ka mid ahaa. waxaynu baraarujin lahayn markaa waxyaabaha inala gudban ayaamahan qaaliga ah ee aynu ku dhex jirno oo had iyo jeer in wakhtiga uu qofku ku jiro ee fadliga badan la isku baraarujiyo waxaa ka faa'iidaa qofku inuu ka faa'iidaysto. ayaamahan iyaga fadligooda iyo camalka la sameeyo fadligiisa iyo waxyaabaha lagu camirayo saddexdaa arrimood ayaynu midba wax ka odhan insha allah. tobankan maalmood ee ka bilaabmaya maanta fadliga ay leeyihiin ee ku soo arooray nusuustiiyo daliilada waxaa kow ka ah inuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala والفجر وليال عشر. إلهي وحو كدارت واغا بريا إياها بينا طبانا marka culimada tafsiirku siday u badan yihiin waxa weeye kama yaqul ibn kathir waa tobanka u horeeya bisha Arafa inuu naqaanay dil xijja la ilaa waa did habeenadii la sheegay habeenkii maalintu ma kala hadhaana way wada socdaan. culimada qayb ka mid ina habeen mar hadii la sheegay habeenada tobanka u dambeeya Ramadaan bay ku fasiraan. waxa labaad fadligooda ka mid ah ayaamahan quraanku si gaar u calaamadiyo wuxuu Ilaahay u bixiyay al-ayaamul macluumaat maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaag iyo dadaalka lagu yaqaano. sidaana waxa sheegaysa aayada 28 ee ka mid ah suuratul hajj ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. dadka cibaadaysanaya ayaamahaas xajka camalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ay Ilaahay xusaya oo magaca Ilaahay ay ku gowracayaan xoolaha Ilaahay ugu dhawaan lahaayeen. waxa saddexaad oo fadligooda ka mid ah Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam waxa uga marxaati kacaynayeen maalmaha ugu fadli badanba ayaamaha dunyada la marayo. hadii saxiixa oo Jaabir ibn Abdullah warinayo wuxuu rasuulku ku yiri sallallahu alayhi wasallam fadlu ayaami dunya ayaamul 10 ayaamaha ama maalmaha dunyada waxa u fadli badan tobanka maalmood ee u horeeya bisha dhil xijja la yiraahdo يعني 10 ذي الحجة أي كفصر راوغو قيل ولا مثلهن في سبيل الله. marka rasuulku waxa la weydiiyay oo qofka jihaadka ku jira ee hawsha adag qabanayana amalkiisu miyaanu ka fadli badnayn ka maalmaha la qabanayo. nabigu waxa uu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu biturab. camalka maalmaha la qabanayaa waa ka fadli badan xataa jihaadka qof ku tagoon ka soo kala harinba mooyaane ama ku shahiiday kaasaa ka fadli badan kara. waxa afraado ayaamaha fadligooda ka mid ah yawmu Arafa ku jira yawmu Arafa maalinkii Arafa ee ducada adoon u ducaysto ugu fadli badnaa la ducaysanay maalinka. yawmul hajj al-akbar maalinka xajka weyn
ayaa culimada qaarkood ay ku fasireen waa maalinkii dunuubta la dhaafay naarahana ilaahay addoomaha uu ka xoreynayay malaa'igtana ugu faanayay mu'miniinta halkaa isugu soo baxay maalinkaasaa keligiiba ugu filanba fadli arrinta shanaad ee maalmaha fadligooda sheegaysaa waxa weeye anna fiiha yowma naxr maalinka ciidda isna ku jira ورسولك صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن مالمها إلهي يكتي سواحة وفضل بضان أما أوين مالك حولها اللقورة عيدة وحكو حقا مالك كوبية طبنات مقعي إلي مالمها عمل كحجك اللقودان يا مالك السديدات ويوم التروية الله إله مالك بيها لون أستني حجك هي يوم عرفة سقالك هي يوم النحر أو يوم الحج الأكبر مالك حجك وين عملك حجك فرا بدن لقودنا يا عيدة يوم القر هي مالك إلا النجاني وكوبية طبنا ساو النبي قوم مقع بحية عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول هي مالك هرلو قديمي كلا يا حجك يوم النفر الثاني هي مالك إلا بعد سوقنا حجك اللي قد ريري وصدحية طبعاً مالكاً فضل جيسة وحكم إذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينك أياكل ميوى ويناء ابن حجر رحمه الله مركو شرح يوحى في كتابه فتح الباري بخاري أو كشرح يوحى الله والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذي الحجة وحقوا sabab ah in fadligan ay yeeshaan uu yeesho maalmahan ay yeeshaan fadli inta la eg waxa kulmay cibaadooyin waaweyn as-salaa was-siyaam was-sadaqa wal-hajj salaadii baa ku jirta saynu ogsoonaan meel laba ka maqnayn soom baa ku jiro maalmahan saynu sheegi doono waxyaabaha fiican waxa kamid ah soomkooda sadaqadii udxiyadii baa la qalayaa hadigii baa la qalayaa waxyaabaha sunno iyo waajib noqonaya xajkiina uu ku jiraa marka arkaan islaamkii waaweynaa intoodii badnaa baa ku jira buu leeyahay walaa yata'ataa dalika fi ghayri ayaamaha kale ma kulmaan intaas waxa labaadoo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam sidaa horeba aynu soo sheegnay camalka ayaamaha la qabanaya inuu yahay camalka u fadli badan maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi اlayaam camal la qabto oo ka fadli badan camalka maalmaha la qabtaa ma jira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa intaasi raaca maxaa sunno ah ee lagu dadaalaya hadaynu garanay maalmahan iyo camalkoodu baynu fadli badan la qabanaya maxaa u sii haboonaynu ku dadaali doonaa ayaamaha dhexdooda waxaynu ku dadaalaynaa koow cidda ilaahay u sakhiray adaa manaasik alxajj wal umra in xajkii iyo umradii ciddii tagtay si wanaagsan ay u gutaan iyagoo og ayaamahana fadligooda oo aan fursadda iska luminayn نبينا عليه الصلاة والسلام فضل حج عمرة دائم بدن بكورها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لو هذا عمرين تكرر حيسيل هيدا بكل فاب النبي حج كأضون وقصة فلينا أبا المرين كلام لها أن شرنا هين وحسنا يا مهن إنه قفك الصوم الصوم وكقاته إلى حديث القدس لها وحو إنه أبو بشارة قفك الصوم يا هيرك يا فضل قولي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قفك عملك الصومين يودان استقع اسكاله صومك مو يعني صومك أنا كأبا المرين يبا إلهي سبحانه وتعالى مركز صومك سيدي سنين أو النقنية فرض كينا والنقنية نبينا عليه الصلاة والسلام سيقارا وحو قصي هضلي مالك عرفه الله صومه qofkii deegaankiisii joogay ee dee xaajiga hawsha ku jira ahayn marka wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku sugnaa siyaamu yawmi carafata ahtasibu cala allah an yukaffira asanata allatii qablahu wallatii bacdah ilaahay waxaan kaga sugayaa oon ajri kaga doonayaa soomka maalinta carafa inuu igaga dhaafo dembi sanadkii hore dembigii dhacay iyo ka soo socdaba kasoo socda inta badan cibaadooyinka kuma badna in la sheego halkan baynu ku arkayna macnaa inaad maalinkaa soonto ilaahay wuxuu kaaga dhaafaya dembigii sanad hore kaa dhacay iyo sanadka soo socda
sidaasuu ku caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaadii baa iyadana addoonku uu ku dadaalayaa siiba jamaca iyo masjidka inuu ku tukado ayaamaha wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah faral iska daayo faralka qofkii uu ilaaliyo u xafidaya sunnahana wuu ku dadaalayaa markastuu sunnaha badiyo addoonku ilaahay buu usii dhowaanayaa sida xadiidulqudsiga ku sugan waxaynu badinaynaa ayaamaha altakbiiru waltaxmiidu waltahliilu waaldikr dikrigaa kala duwan subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar oo qof walba u sahlanaya iyo inaynu xuska ilaahay badino oo muu kala qaadin nebigu calayhi salaatu wasalaam camalada maalmaha la qabanayo dikriguna kow buu ka yahay siday ficil ahaan ku fasireen asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu cumar sida bukhaari ku sugan iyo abi hurayraba waxa an yakhrujaani ila suuqi fi ayaami alcashr yukabiraani wa yukabiru nnaasu bitakbiirihima suuqay u bixi jireen abi hureyre iyo cabdillaahi bnu cumar marka allahu akbar bay wadayaan ciidda ka hor iyo kadibba dadkuna markaasay la akhriyayaan kolkaasaa suuqa halkan innaga buuqa uu ka badan yahay ee guuxa uu ka leeyahay buuqa iga iibiyo iyo wixii nooca ah takbiirtaasaa kor u kici jirtay suuqa oo asxaabta iyo dadka muslimiinta halkaa joogaa ay ilaahay weynayn jireen subxaanahu wa tacaala iyagoo howlahooda wata haddana sidoo kale cabdillaahi bnu cumar oo dhaqanka nebiga aada u eegan jiray iyo sunnihiisa marka uu mino joogo aada buu akhriyi jiray ilaa mino oo dhan ay isu baxda iyaduna takbiirtu oo guuxa takbiirta la maqli jiray waxaanay u badnaan jirtay cid waliba gaarkeeda inay isaga takbiiran jirtay waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid ah sadaqa wax bixinta ayaamaha farxadda la bixiyo wax ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaأtiya yowmu laa baycun fiihi walaa khullat walaa shafaaca wاlkaafiruuna hum الظaalimuun wax bixiya buu ilahay yidhi intaanu qiyaamuhu iman maalinka qiyaamuhu markuu yimaadana qofku fursad uma haysto baac mushtari iyo saaxiib waxsiiya iyo waxuu bixiyo toona camalkii wuu xidhmay waa abaalmarin marka ayaamaha ah wax bixin kartaan wax bixiya buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa la bixinayana waxaa usii fadli badan xoolaha lagu qalayo beytullaahi alxaraamka iyo xaramka lagu qalayo haddii uu yahay hadigii waajibka ahaa iyo haddii uu yahay kii sunnaha ahaa labadaba oo waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 100 geela ayuu qalay sanadkii uu soo xajiyey ee xajatulwadaac 100 geela wax aada u badan weeye oo innaga daynala badan intii badnayd isagaa gacantiisa shariifkaa ku gowracay cali bnu abi aalib uu dhowr iyo 30kii soo hadhayna u dhiibay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa qofka awood u leh xataa isagoo halkan joogo u diran karaya si xaramka loogu qalo waxaa kaloo sunna udxiyada oo qofku markuu halkaa joogo wuxuu qalayaa waa hadi reerkiisa marka uu joogo maalinka ciidiya 3 maalmoode ka dambeeya xooluhu qalayana tusama udxiya udxiya la yidhaahdaa isku shuruudaanay leeyihin oo neefka udxiyada galunba hadigana galaya nebigu calayhi salaatu wasalaam udxiyadaana wuu samayn jiray oo neefkaa waa gowracaya iyo ka badanba sidaa markaa ku sugan bukhaari iyo muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni wuxuu gowracay 2 neef ama 2 wan oo shilshilis oo geesa leh saa la garanayo dee arigu ama wananku goortay geesa yeeshaa waa markuu dhowr jir yahay ama muddo joogay markaa dabaxahumaa biyadi wasamaa wakabar gacantiisuu ku gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ka saaray garabka oo gacantiisa uu ku qabtay oo midigtana ku gowracay kolkaasuu bismi illaahi allahu akbar ku gowracay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid kalena waxa uu ku yihi qofka bani aadamkii maalintaa ciidda ma sameeya camal ka fadli badan min ihraaqi dam dhiigu daadiyo neef xoolaha uu gowraco ama xoola uu gowraco dhiigga ka daadiyo dhiiggaa uu daadinayaa u fadli badan maalinkaa ciidda iyo 3 maalmood ee ka dambeeya dhiiggu intaanu dhulka ku dhicinba ilaahay agtiisa meel buu ku dhacaya alla u qorsheeyo subxaana wa tacaala ajrigeedu wan yahay xajkana markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi afdalu lxaj alcaju wathaj xajka waxaa u fadli badan ka uu qofku talbiyadii iyo dikriga aada u akhriyo kor u qaado dhiig badanna uu qubo oo xoolo badanna uu gowraco
islaamkuna had iyo jeer wuxuu ku dadaalaa ayaamaha in bulshada baahani ay dhergaan oo la wada farxo oo la isla jaan qaado farxadda ciidda iyo ayaamaha ku xeeran ciiduna ahla alislaam dadka muslimiintii labadaa ciid bay leeyihiinoo waxyaabaha ay ku farxayaan sadaqada waajibkiiyo ta sunnaha abaa ka mida sidaa daraaddeed baa la jideeyey udxiyada iyo zakaat fidriga labada ciidood ciiddii ciidulfidrina waxaa ka dambeeya zakaatulfidr oo lagu faraxsan yahay faradkii la soo gutay masaakiintana lala farxayo ciidan xajkii markii aynu gudanayna waxaa la qalayaa udxiyadii oo iyaduna hilibkii iyo wixii dadka ka farxinaya la gowracayo markaa qofkii ilaahay u sahlay ee awood dhaqaale u haya waa sunno aada u adag waajib maaha zakaat fidrigu waa waajib laakiin udxiyadu waa sunno mu'akada marka waxyaabaha lixda ah ayaa qofkii uu ku dadaali doona ayaamaha iyo guud ahaanba camalkii khayrka xidhiidhkii naftiisa inuu wanaajiyo xidhiidhkii ilaahay uu la lahaa wanaajiyo xidhiidhku ummadiisa la lahaa uu wanaajiyo hadday yihiin ehel iyo hadday yihiin jaar iyo hadday yihiin cida wada joogaanba marka waxyaabaha ayaamahan aynu uga faa'iidaysanayno kuwaasaa ka mida si aynu uga macaashno oo maalmahan aynu u mahadinno marka ilaahay agtiisa camalka la inoo miisaamayo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب